اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan kaloo bilaabaynaa diseaska loo yaqaano inta badan waxa weeye pharyngitis okay ama pharyngitis nooca doontada adigu waa akhri okay inta badan pharyngitis ku inta badan waxa weeye waa dalqa xanuun waxa weeye hadii jeer halka dalqada oo hadii jeer waxa weeye uu inflammation ku dhaco marka ka laftiisu waa mid hadii jeer aynu aragno oo muhiim ah aadna marka qaarkood fara badan maadaama waxyaalo kala duwan ay keenaan ayaan meesha ay tahay iska dhow wada afki ah marka hadii jeer waxa weeye waa halka behind the mouth halka afka ka dambaysa ay hadii jeer ee dalqada ayaa waxa weeye inta badan waxa weeye afka iyo throat-ka u dhaxaysa ayaa loo yaqaanaa pharyngitis okay inta badan inflammation ka ku dhacay jeer pharyngitis ku inta badan waxa weeye waa waxa loo yaqaanaa pharyngeal mucosa ayaa hadii jeer ku dhacay waa inflammation of the hadii jeer waa inflammation of the pharyngeal mucosa hadii jeer waxa ku dhacay mucosaha halka dalqada okay inta badan waxa hadii jeer sababa waxyaalo ay ka mid yihiin mechanicalka waxa weeye aan shay kasta oo waxa weeye ama bir ah ama caag ah ama wuxuu doonaha noqdo ama waxa weeye aluminium ah shay kasta ama qori ah oo waxa weeye shaygaas waxa weeye hadii jeer waxa weeye mudaha ama taabta marka waxyaalaha kale hadii jeer waxa mechanicalka hadii jeer ayaa sababa sida sharp objects-ka oo xafiiqan hard food cunto adag waxa weeye hadii jeer neefku waxa weeye uu cuno oo waxa weeye uu hadii jeer liqiyo ama uu dirka ku liqo okay oo foreign body ama hadii jeer waxa weeye waxyaalo kale oo dibadda ka yimid oo inta badan waxa weeye deebilkeeda ku leeyahay iyo waxa weeye meesha gala ama inta badan umida marka inta badan mechanical ku hadii jeer waxa weeye waa ashyaadaas hadii jeer waxa weeye inta aynu isticmaalayno ama mechanical objects-kaas aynu isticmaalayno hadii jeer waxa weeye neefka waxa weeye mudah okay ama waxa weeye hadii jeer mechanical waxa loo yaqaanaa wax allaaliya wixii inta badan waxa weeye inta badan dibadda ka yimi neefka dibadda ka yimi okay waxa weeye inta badan waxa weeye hadii jeer waxa weeye waa turumada waxa weeye turuma samayn kara it is caused by mechanical sharp objects okay inta badan waxa kale oo iyaguna keena waxa weeye loo yaqaan hot food ama thermal cunto kullo waxa weeye neefka hadii jeer uu liqayo waxa weeye uu cunay oo meeshii lafteedii gubtay taas lafteeduna waxa weeye waa ay keentaa waxa loo yaqaan hadii jeer waxa weeye waxa loo yaqaan pharyngitis okay waxa kale oo iyaduna keenta inta badan waxa loo yaqaano pharyngitis-ka waxa iyaduna keenta waxa weeye waxa loo yaqaano hadii jeer chemical ama corrosive materials-ka ama acid ama alkaline drugs-ka hadii jeer kuwa laftooda waxa weeye uu neefku cuno oo access u yeesho ama uu cabo ayaa hadii jeer waxa weeye keenta waxa weeye chemical-ka hadii jeer waxa weeye ama acid ha noqoto ama alkaline ha noqoto drugs waxyaalaha waxa weeye hadii jeer ay ka samaysan yihiin waxyaalaha metalisku wuxuu doonaba ha noqdo ama waxa weeye waxa soo dhan baa ugu keena wixii makaansa chemical ee neefku inta badan uu hadii jeer afka geliyo ama waxa weeye ilaa waxa weeye waxyawaan uu makaansa liqada okay inta badan infectious agents-ka keena waxa kamid ah hadii jeer microbacillus ayaa hadii jeer keena oo ah hadii jeer waxa weeye marka aynu eegno aynu ka hadlayno pharyngitis hadii jeer halka keena waxa weeye hadii jeer waa wuxuu ka dhaca hadii jeer halka dalqada marka inta badanna waxa weeye wuxuu keenaa isaga laftiisa inflammation-kii dalqada ayuu keenaa oo waxa weeye taa lafteedu waa kuwii inta badan infectious disease-ka waxa weeye ay bacteria-du keenaysay oo ku jira nooluhu uu keenayo strangaliska aynu iyadana hore usoo marnay kala inta badan waxa weeye isaguna equiniska ku dhaco kale ayaa isaguna leh hadii jeer waxa weeye pharyngitis-kaas keena okay ama parasitis-ka oo helminths-ka iyo waxyaalaha ayaa iyaga laftoodu keena inta badan okay marka inta badan waa kuwa disease-ka waxa weeye bacterial-ka waxa weeye ay microbial-ka ba kuwana keena marka halka mechanical iyo wixii disease keenayba waynu sheegnay qaar kale oo fara badan oo way jiri karaan keena pharyngitis waxa weeye waa dalqa xanuun waad garan karaysaa
waxa weeye inay wax aad u fara badan keenaan laakiin waxa weeye intaynu marka halkan ka xusaysana waa taas clinical science lagu kala garan karaa clinical science lagu garan karaa waxa weeye inta badan waxa weeye waa arrimaha soo socda oo had iyo jeer ah in markaynu clinical science ka aynu aragno aynu la kaashano waxa weeye aqoonteena dalka xanuunada uu jiro had iyo jeer aynu dee waxa weeye ku qanacno oo dee waxa weeye clinical science ko waxyaalaha xanuunku waxa weeye signalka uu soo dirayo dee adigu aad ku garanaysa okay very famous waa loo weyn waxa weeye cuntadii inuu neefkii lago ayaa adkaanaysa animal uses to eat of drink waxaan cabbi maayo waxaan cuni maayo regurgitation of the fluids hadii jeer wuxuu soo daacayaa digiisa celinayaa ama soo calaalnaqsanaya waxa weeye fluids iyo food hadii jeer uu sanka ka keeno oo waxa weeye halkii regurgitionkii waxa weeye dee caadiga ahayd neefku marka dee uu regurgitation samaynayo waxa weeye inta badan dee afkay ka iman jirtay marka inta badan cuntadiibaa afka ka imanaysa waxa weeye markuu regurgitionkii sameeyo ama calaalnaqsigii oo kale inta badan waxa weeye cuntadii ayaa sanka ka imanaysa okay waxaa kaloo aynu arkayna had iyo jeer neefkiioo luqunta ama headka fidinayo waxa weeye saasoo kale u kala jeediyo waxa weye had iyo jeer waxa weeye head is usually extended manaa waxa weeye luquntuu fidinaya sidii dee wax wax lagaga dhigayo waxa weeye dalqade wuxuu doonaya had iyo jeer waxa weeye in uu de waxa weeye xal u helo ama uu la fiso si uu sameeyo markaa waxaad arkaysaa isagoo kolba fidinayo waxa weeye luqunta waxa weeye luquntii kor fidinayo okay waxaa kaloo iyaduna keeni karta waxa weeye waxa loo yaqaano inta badan markaad neefka afkiisa furto inta badan waxaad ku arkaysaa haddii baykeedi ku leeyahay sorry halkaa waxa weeye waynu ka yar goodnay markaynu nostrilka maraynay waxaynu maraynay cuntada oo ka timaana nostriliska okay drooling of the saliva ayaa iyaduna jirta oo waxa weeye candhuuf iska qubanaysa okay regurgitionka marka neefku uu sameeyo fluids ku keenaya ama waxa weeye waxyaalo qoyan oo waxa weeye dee liquid ah okay inta badan ama dheecaan cuntadiina sanka ayay ka imanaysaa waa marka uu neefku yahay severe case xaaladdu ay khatar tahay droolingkuna inta badan candhuuftu waa iska soconaysa marka had iyo jeer neefku afka furana wuu xanuunayaayo way ku adkaanaysaa inuu afkii furo had iyo jeerna madaxa ayaad arkaysaa isagoo waxa weeye kor hore u fidinayo waxa weeye kala jiidayo normal compression of the throat baa inta badan timaado dalqadu way xidhmaysaa waxa weeye halkaa throat ama waxa weeye luquntu way xidhmaysaa oo inta badan waxa weeye neefku maadaama ay baranayso way xidhmaysaa kaf baad markaa arkaysaa waxa weeye neefku isagoo had iyo jeer qufacayo microbrulent nasal discharges baad arkaysaa waxa weeye waxyaalihii mucoskii soo go-ay ee waxa weeye dee uu disiisku soo gooyay iyo brulentiskii la socday waxaasoo dhan baad inta badan arkaysaa oo dee neefku uu dee soo discharge garaynayo dee waxa weeye had iyo jeer uu hadiyadalikeed kuley sanka ka keenay if the local swelling is severe hadday marka xaaladdu aada u khatar tahayna they need the obstruction of respiration inta badan waxa weeye neefsiga laftiisuba inuu xidhmo ayaa dhacaysa inta badan neefsiga laftiisu inuu xidhmo ayaa dhacaysa waa markay had iyo jeer arrintu khatar tahay waxaa kaloo iyaduna dhici karta waxa weye loo yaqaano retrovernigal inta badan oo ah waxa weeye in halkaa ka dambaysa dalqada qaybtaa dalqada ka dambaysa haddaa lafteedu had iyo jeer waxa weeye in ay noqoto waxa weeye mid iyada lafteedu waxa weeye caabuqda oo inta badan waxa weeye bararka okay parotid leaf notisku inta badan waa iyaga laftoodu waa ay ballaaranayaan oo large baa ku dhacay leaf notiski inta badan leaf notiski ama waxa weeye leaf notiski qanjidhadiina halkaa dee waxa weeye intaa u dhowe dee kurka neefka ku samaysane haddii delicate kuleeyay intaa dee haddii delicate kuleeyay daamanka iyo alkaa haddii ka yar dambayse waxa weeye intaa dee farnakiska ku beegan inta badan waxa weeye waxaad ku arkaysaa inta badan iyagoo baranaya ama waxaa loo yaqaano dee parotid leaf notice leaf notiska had iyo jeer la xidhiidha parotid galaanka leaf notiska la xidhiidha ama qanjilada la xidhiidho inta badan waxa weeye barar baad ku arkaysaa okay waxaa kaloo iyaduna jirta markaynu intaa sheegno inta badan treatmentka waxaynu siinaynaa neefka u qoraynaa maadaama uu falaafay jiro strocto haddii dheedu kuligay penicillin okay ama waxaa loo yaqaano penicillin iyo streptomycin la isku daray waxaa loo yaqaanaa streptomycin okay antibiotic waxa weeye antibiotic inta badan penicillin iyo inta badan saaxiibadeed okay marka labadaas waa marka la isku daro ayaa inta badan waa la isku xoojiyay had iyo jeerna wadayaasha waxa weeye antibiotica markaasaa mid saddexaad waxa weeye loogu magac daraa marka
streptomycin waxa weeye inta badan wuxuu ku qotaa halkaa kugu taalla qawska waa labadaasoo la isku daray streptomycin iyo penicillin la isku daray xayawaanada waaweyn inta hadda jeer waxa weeye looda iyo fardaha iyo waxa weeye ama gamaankaba iyo geela iyo wixii lamidaba inta badan tuufiyalis baa la siiyaa haduu 12 saacadoodba 12 saacadoodba mar baad siinaysaa 5 cashaad u wadaysa okay waxaad kaloo samaynaysaa waxa loo yaqaano aynu samaynayna waxa loo yaqaano inta badan oo aynu qoraynaa aartaas inta badan hadii jeer waxa weeye waa qol weey waxa weeye af Soomaali waxa ku noqonaysaa waxa weeye prescribe waxa weeye inaad wax shayga qorto okay marka la medicalka isticmaalo garanaysa marka waxa weeye wuxuu leeyahay macnaha waxaynu qoraynaa expectile 30 milliliter orally in the carton dawada kale loo yaqaano expectile ayaynu qoraynaa expectile ku inta badan waxa weeye waa bahda dawooyinka hadii jeer loo isticmaalo waxa loo yaqaano expectorants okay syrups way hadii jeer sameeyaan waxay soo gooyaan waxyaalahan hadii jeer waxa weeye ayay jirka ka soo saaraan waxyaalahan hadii jeer qashinkeeda waxa weeye markay inflammation ku dhaco ku halayay microbiologiska ay sheegayeen iyo deedeedkay kuleeyeen kooska restriction ku dhacay burbur iyo marafayo waxa marka balqan oo kale af Soomaaliga balqan oo kale ayay noqonaysaa ay ka soo saaraan jirka dawooyinkaas marka waxa loo yaqaanaa expectorants waxa weeye marka expectile-kaasi waxa weeye kuwaas ay kamid tahay soo saaraya hadii jeer waxa weeye ka soo saaraya waxyaalaha balqanka jirka soo yareeyay human preparation marka qaarkood waa loo isticmaalaa inay dadka laftoodu waa ay sameeyaan oo iyaga ay badan sameeyaan okay waxaan kala sameeynaa waxa weeye la aynu qoraynaa wax loo yaqaano bisulfon oo iyaga lafteedu ah waxa weeye asamocolite oo one ampule waxa weeye aynu siinayno 70 kilogram aynu siinayno hadii jeer one ampule okay aynu taramas kala siinayno waa mucolite hadii jeer mucolite kuna waxa weeye waa dawooyinka kaaba ee hadii jeer waxa weeye caawiya glucose membrane-ka inuu hadii jeer inuu sameysmo oo waxa weeye soo ka waayahay waxa kaloo iyaduna meeshii muhiim ah jirta inta badan waxa weeye ay leeyihiin abortic synthesis-ka marka wuxuu leeyahay waxa weeye abortic synthesis-ka marka la eegno farnakisku inta badan waa meel hadii jeer cuntada ay marto oo waa baasayka waa hawada meesha ay marto marka labadaas uma maadaama ay maraan waxa weeye farnakisku inta badan waxay loo arki karnaa as a symptom of either disturbance in respiration or intake of food hadii jeer way maadaama labaduba halka maraan wadadooda ay tahay waxa weeye marka uu farnakisku ku dhaco marka uu dhaco inta badan waxa weeye waxaan ka fikiri karnaa markii waxa weeye inay dhacdo waxa loo yaqaano disturbance of the air oo hadii jeer in hawada ama air qaadashada neefkooda qaadanayo ay waxa weeye disturbance ku dhaco waxa weeye ay la labo waxa weeye jirka loo galo waxa weeye sultan ama isbaaro ay ku dhacdo or intake of food ama cuntada lafteeda meeshii marido meeshii waa inflammation ku dhacay baratay meeshii soo qabsatay ay yaraatay halkii wax maraya marka hadii jeer xal looga baahan yahay remove the primary cause oo shay ugu horeeya marka hore bal eego inta baado waxa weeye shayga waxa weeye keenay bararka meesha ka saar hadaba waxaad samaysaa inta hadii jeer isii dadka kala neefka si tarsiinka iyo barnaamijka iyo rayska tarsiinka hadii jeer waxa weeye cuntooyin oo hadii jeer dhirta greenka ah waxa weeye hadii jeer jirsan weeye oo dhir gaar hadii jeer oo waxa weeye meel badan oo biyo ka baxda sida greenka iyo meelo badan okay ma hubo in Soomaaliya ka baxdo marka darsiinkaas iyo barnaamijkaas hadii jeer waxa weeye qamadiga iyo waxa weeye waxyaalaha inta badan hadii jeer la shiiday ama waxa weeye la shukulay ama la burburiyay iyo rayska iyo inta badan suuq maraqa iyo hadii bariiska waxyaalahaas oo cuntada jeer shiilaysan sometimes parental feeding is necessary marka qaarkood waxa weeye parental feeding is necessary lafteedu waxa weeye waa arrin muhiim parental feeding inta badan waxa weeye neefka oo afka laga quudiyo waxa weeye taxriifada loo sameeyo ama la isku daro sida wanaagsan loo siiyo okay medical steam inhalation baa iyaduna hadii jeer muhiim ah in hadii jeer siino sida fardaha oo kale waxa la siiyaa waxa weeye dawooyin bay dalqada kaga buufinaa medicated steam dawooyin hadii jeer waxa lagu buufiyo waxa weeye dalqada sida kuwan asmada kale loo isticmaalo kuwaas laftooda waa la isticmaalo waxa weeye waa lagu buufiyaa inta badan oo dhowr nooc iyo kala duwan oo ku halka ugu yaala okay
other calf sublimativeska waxyaalaha had iyo jeer qufaca yareeyana iyadana waxa weeye waa la siiyaa. Okay, iyo dee waxa weeye waxyaalaha had iyo jeer soo saaraya balqanka kuwaas oo dhanna inta badan waa arrin muhiima. aad iyo aad u salaam. Okay.